السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي الدنيا ميل والبات كجوتي maanta xarabna inaan qaybiin kale oo koorsiga aan dib aan u galno sidii gacanta painting ama calan loo saari lahaa ayaan rabnaa. Marka koowaad waxaa sameynaysaa calanka sidaas ay u fureysaa si gacanta calanka uu suitable ugu noqoto. Okay, marka hore waxaan sameynaynaa meesha calanka kugu jiray ayaa tagaysaa, gacanta kugu jirtay ayaa tagaysaa. marka calankii iyo gacan oo waxaa sameynaysaa PNG ah oo without background ah ay soo qaadanaysaa. labada marka sidaas aad u furtid waxaa leedahay okay ayaad leedahay. okay marka sidaas aad u dhahdid waxaa laga rabaa heerkan marka adiga aad joogtid in gacanta aad soo qaadid, move aad soo dhahdid dhanka falaga aad keentid. okay, halkaas ayaa keenaysaa. marka halkaas keentid waxaa laga rabaa control T inaad dhahdid keyboardkaagi. control T marka dhahdid right click aad leedahay. right click marka aad dhahdo waa meesha ay ku qoran tahay macna flip horizontal aad ku dhufanaysaa. flip horizontal marka ku dhuftid xoogaa gacanta waa soo yareynaysaa. marka soo yareysid in wixii cabirkii iyo size-kii oo islahaadaan ayaa la rabaa. in gacanta dhinacna kaaga weynaato lama rabo, calanka dhinaca kaaga weynaado lama rabo. marka waa wada samaysaa. marka sidaas aad samayso gacantana sidaas ay ku samayso. okay, calanka haddii uu ku aadan yahay is dhahdo okay intaas sameynaysaa. marka intaas samaysid marka waxaa furanaysaa had iyo jeer layerada furanaysaa. layerka waxaa u furanaysaa halka macalanka joogtaa mise gacanta joogtaa. waa in wixii adiga aad ogaato. okay, marka qaybtaasi aad samayso waxaa sameynaysaa kabacdi waxaa dooranaysaa meel la dhahayo waxaa la dhahayay image ayaa dooranaysaa. image marka adiga aad dooratid marka waxaan shuruud waaye step waa ina fahantaa. meesha ay ku qoran tahay adjacent-ga kasii tage. adjacent-ga marka ka tagtid waxaa kasii doorana meel ay ku qoran tahay macna desagerator ay ku qoran tahay tage. okay, desagerator waa halka hoos ay ku qoran tahay ama keyboardka waxaa ka taaganay shift plus control plus U ka taabanay. okay, gacantii waxay isku bedeshay qaab macnaa gray ahaan ay isku bedeshay. isla haddana isla meeshii ku laabanay image-ka ku laabanay waxaa kasii tagay haddana level ama control T control L keyboardka ka taabanay. halkan sare xoogaa waa soo jiiday ilaa xoogaa dhowr iyo 20 ka dhigay. haddana dhinacan waa ka soo jiiday ilaa 30 xoogaa ka dhigay. okay, labadaas wado marka adiga aad samaysid kabacdi mar labaad levelkii waad ka samaysay. haddana waxaad aadaysaa filterka aadaysaa. okay, filterka marka aadid meel ay ku qoran tahay macna Gaussian blur radius ay ku qoran tahay aadaysaa. away blurka marka hore aadaysaa. marka okay oo filterka aadid filterka blurka kasi aadaysaa waa kaas macna Gaussian blur meeshan ay ku qoran tahay. meeshan okay leedahay. meeshan okay marka dhaadid kabacdi waxaa laga rabaa cabirkan inaad 7 email kaga dhigtid laga rabaa. okay ayaad leedahay. okay, marka adiga aad hadid oo intaas aad samaysid marka waxaa laga rabaa layerkan oo gacanta inaad save gareysid qaab Photoshop ahaan inaad u save gareysid laga rabaa. kabacdi waxaa tagay meesha ay ku qoran tahay file ay ku qoran tahay tagay. file marka tagtid waxaa leedahay save as leedahay. marka waxaa ku qoranaysaa lambar ama wixii adiga magaca u doonaysa ku qoranaysaa. marka faylalkaaga hal meel kugu save gareysanaadaan mar walbo ha ka raadinin goobo kala duwan ha ka raadinin. okay, marka inta tagto kabacdi oo qaababkan kale uma save gareey kartid qaab Photoshop ahaan u save gareynaysaa. save aad leedahay. save marka adiga aad hadid intaas dhacdo waxaa lagu save gareey qaab Photoshop ahaan ayaa lagu save gareeyay. okay, u jeedaa soo ma jeedid qaab Photoshop ahaan lagu save gareeyay. marka intaas wada adiga aad marto aad save gareysid kabacdi waxaad tagaysaa. okay, stepka labaad waxaad tagaysaa. stepka labaad gacanta tagaysaa. gacantii marka sidaas aad u joogtid waxaa leedahay meesha ay ku qoran tahay image ay ku qoran tahay tagay. waxaa leedahay undo Gaussian blur oo hore aad u soo sameeysid mar hore save gareysatay laakiin haddana waxaa la undo levelkii hore aad u sameeyay. intaas marka adiga aad samayso waxaa laga rabaa in calankii aad mar kale copy ka dhigto. waxaa leedahay keyboardka waxaa ka taabanaysaa control J ka taabanaysaa. control J marka ka taabatid waxaa laga rabaa layerka gacanta inaad dhexdooda keento. intaas waad faanta fila.
okay marka intaas adiga aad samayso waxaad dooranaysaa calankii ayaa dooranaysaa okay calankii marka dooratid calanka kan sare aad dooranaysaa kan sare marka dooratid meel ay ku qoran tahay filterka tagay filterka meel okay marka filterka sidaas aad u tagto waxaa laga rabaa inaad tagtid meel ay ku qoran tahay من dissolved ay ku qoran tahay ka bacdi waxaad kasii taabanaysaa displays inta tan iskaga dhiganaysaa okay ayaa leedahay okay marka dhaadid automatic wuxuu ku aadinaya faylkii hadaydii aad save garaysaday qaab photoshop aan u save garaysatay ayuu ku geenaya marka ku geeyo waxaad leedahay okay ayaad leedahay ka bacdi open aad leedahay ka bacdi inta xoogaa isbedelayso uma jeedid sidaas samaynaysa marka sidaas aad samayso layerka hoose tagaysa oo calanka ah kalarka inaad ka bedeshida laga rabaa layerka marka tagtid waa kalarka inta ku yahay okay inta laba kalar waaye okay labadaas kalar midka hoose qaabka ku yahay laga rabaa inaad inta kan ka dhigtid laga rabaa marka sidaa marka ku yahay keyboardka waxaad ka taabanaysa control backspace ka taabanay waad fahantaa filaa hadda automatic wuu isbedelay laakiin anaga ma arkayno sababta kuwaana noo furan soo uma jeedid okay marka intaas adiga aad samayso haddana waxaa laga rabaa inaad gacanta tagto gacanta marka tagtid gacanta inta lagaa maro inaad right click siisid geeska lagaa maro gacanta dusheeda halkaan ay furan tahay laga rabaa inaad right click siiso right click marka ay siisid meesha ay ku qoran tahay select pixel ay ku qoran tahay aad dooranay ka bacdi gacantii lagu calaamadeynayo soo uma jeedid gacantii marka sidaas lagu calaamadeeyo waxa u laabanaysaa halka sare calanka qaybta sare u laabanaysaa marka qaybta sare aad u laabatid ka bacdi waxa laga rabaa inaad adiga right click siisid right click ma siinaysid ad waxa leedahay layer mask dheer okay layer mask waa kaas waa ku dhufanaysaa add layer mask marka add layer mask siiso automatic wixii dhan waa la kansalaa gacanta kaliya ayaa lagu soo harsiina hadda gacantii calankii waa ka muuqda laakiin inay gacantahay in kale shaki ayaa ku jiro meesha ay ku qoran tahay kadib waxaa tagay meesha ay ku qoran tahay normal ay ku qoran tahay tagay meeshaas ay ku qoran tahay normal waad furaysaa marka furtid meel ay ku qoran tahay multiply soo uma jeedid multiply ayaa ku dhufanaysaa multiply marka ku dhufatid waad arkaysaa gacantii si automatic ah waxa lagaaga dhigay calankii lagu saaray ina painting marisay lagama dareemayo si nadiif automatic lagaaga dhigay hadda waad fahantay filaa marka insha Allah intaas waxa laga rabaa inaad si fiican aad u soo baratikaysid oo juhdi fiican aad u soo gelisid marka insha Allah halkan ayaan ku soo afmeerinaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh